gabadh yareed ayaa hooyadeed waxay tiri ina keen kaalay oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي وايدين سلامي كوسو دوادا channel كيس أنفع أدينكو محدثن وأني جوا شكري معدن ما أنت وحيدين سدا شيكا كليتو شيكا ذا وحكو ساعتين تهاي وحيد أحمرتي هويو إجا قبضيدا هويدا إيه قبضيدا وحاد أحمر قبض ير أو أدي دوري تمن جرأة أيا وحيد تيري هويو ما قرانيو nolosha micnaheeda waayo dib un ayaa arkaa dadka ehelka dadka asxaabta ah ee ani intii yareed aan noolaa un dib iyo qaxar iyo rafaad un baa arkaa maxaa weeye nolosha micnaheeda markaas hooyadeed waxay ku tiri nolosha micnaheeda koowaad waxaa weeye kow ina ilaahay caabudno labana ina ku noolaano naxariis iyo nabadgelyo iyo farxad taasna waxay ku xiran tahay qofka iyo siduu u arko iyo siduu noloshiisa asaga ama ayada ka dhigato qof walbo sidoo ilaahay noo sheegay waa imtixaani dibna wuu mari noloshii in nafta waa imtixaan iyo dib joogto ah balse qofka isugu qaata bal hadaba iiga sheekay karootada ayay tiri hooyadeed intaanan aad dabka saarin markaas waxay tiri waxaan arkaa inay macaan tahay ee adag tahayna waxay tiri iiga sheekay kofigan inuu carfayo ayaan u arkaa inuu kofi yahay oo miro yahayna waa u arkaa ka bacdi waxay tiri okay dabkii biyihii way karkarsan yihiin kurid xabadan karootada ah iyo xabadan ukunta ah iyo kofigan oo labada qaadada ah ka bacdi markii cabaar ay ku jireen ka soo saartay markaas ay tiri ukuntii fiiq karootadina soo saar kofigii ay ku dhex shubteen waxay tiri kofigii miraha ahaa oo la taaban karay aaway markaa biyaha kulul ku shubtay markaas wuxuu ku tiri wuxuu ku dhex lumay ama ku dhex baaba'ay biyihii karkarsanaa ee kululaa dabka saaraa markaas waxay tiri okay karootadii hadaaya ay ii sheegtay inay adkeed bal hadda iiga sheekay markaas waxay tiri way jilay bal haddana iiga sheekay ayay tiri ukuntii markaas waxay tiri ukuntii markii hore way adkeed balse hadda markii hore way jilicsaneed iga raali noqo balse hadda way adkaatay markaas waxay tiri hooyo macaan nolosha waa sidaas nolosha xaalad walba ay ku geliso waa badalmaysaa balse adi waxaan kugula talin lahaa inaa noqotid sida kofiga oo kaleeto waayo kofigii asagii lama bedelin balse asaa wax bedelay biyihii karsanaa xaaladii dhibka badneed ee wada mareen saddexdooda isku waqti ay ku wada jireen isku waqtina la geliyay si cadaalad ah waxaa wax bedelay kofigii wuxuu u bedelay biyihii cadaa wuxuu ka dhigay casaan camal ama gaduud saa u taqaanid biyihii marka wuu carfiyay kabacdina energy camal qofkii caba energy ayuu yeesha ama hurdada ka tagto kofiga soo waxay tiri ukuntii marka hore jilicsaneed soo dad waxaa jiro marka hore jilicsan xaalad markay waxay tiri hooyo macaan dad waxaa jiro jilicsan sidoodaba jilic ma ahan daciif oo waxba taraynin lagama wado qof naxariis badan ogaal badan dadka wax taro balse markay xaalad iyo dhib iyo caqabado badan kasoo hor imaadaan adkaado oo qofkii aad ogeedba ahayn oo isbedelo markii la dhahay qof hebel wuu isbedelay ama heblaayo way isbedeshay saas oo kale mararka qaar waxay tiri qof adag oo xayi oo wax qabad badan oo karti leh markay xaalado soo maraan noloshana jilco dhamaado la waayo ayaa jiro balse waxay tiri hooyo waxaan kugula talin lahaa nolosha mar walba way dhib badan tahay marna ma jilicsanaanayso marna ma fududaanayso xataa noqo qofka adduunka u lacagta badan leh nolosha waa sida adiga ka dhigatid adiga ayaa ka mas'uul ah sida adiga u aamintid balse ha noqonin sidii karootadii oo kaleeto oo markii hore adkeed balse markii xaalad ama caqabad nolosha soo martay jilicsanaatay haddana ha noqonin ukun naalo ama bayd sida u taqaanid waayo waxay ahayd mid markii hore jilicsaneed balse haddana xaaladda adkaysay oo noqotay waxad adag balse waxaa noqotaa sidii kofiga oo kaleeto oo ah caraf iyo udgoon iyo energy isku bedelay soo marka waxay ula jeedada hadalkaasi ka leeyahay waxa weeye xaalad walba ood martid yee xaaladda ku bedelin balse adiga bedel xaaladda sidee adi xaaladda u bedeli kartaa marka waa in adiga ku sabartid waa in adiga u dulqaadatid waa in adiga ilaahay aamintid waa adiga inaa fududaysatid wixii adkaa waa in adiga fududaysatid waayo wax walba waa imtixaan qof walbana imtixaan uu marayaa
qof imtixaan la'aan ma jiro adduunka marka intaas ayaan rabay inaan idin la wadaago oo ku saabsanaa ukunta karootada iyo coffee waa inoo video dambe oo xiiso leh hadii ay baha wada leedmo waa inoo video dambe oo xiiso leh hadii ay baha wada leedmo insha Allah waa sidaas iyo nabadgelyo iyo videoga xigo iyo barta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته